waxaad tiraahdaa maanta waxaan ahay shukri cabdi aadan dacwad baad wadaa yaad ku wadaa dacwad waxaan ku wadaa inantaasoo naga isu jira inantu markaa waa tuma waxaa la yaaminayaa si way iska sheegatay shukri waxaa yaamina cabdi aadan aamina cabdi aadan nimca yaasiin markaa miyay sheegatay way sheegatay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idin salaam walaalaha ugu qaaliga ah meel walba oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada janalkayga halkaad igala socotaan waa Fahiima Janal soo dhawow ayaan ku leeyahay haddii aad cusub tahay fadlan janalka subscribe saar sidoo kale muuqaalka la galay waad mahadsantihiin maamadan oo lagu magacaabo Shukri Cabdi Aadan ayaa waxa ay tiri waxaan walaalanahay Nimco Yaasiin Caraale oo hadda la baxda Nimco Yaasiin markeedu hore waxaa la dhihi jiray bay tiri Aamina Cabdi Aadan waana walaashay haddaba maamadan waxa ay noqonaysaa qabiilkii afaraad ee soo sheegta Nimco Yaasiin Caraale waxa ismeydiinta mudan Nimco Yaasiin Caraale maxaa lagu arkay oo kolba qabiil uu u soo sheeganaya oo u leeyahay waa gabadheeni waxaad tiraahdaa maanta waxaan ahay Shukri Cabdi Aadan dacwad baad wadaa yaad ku wadaa dacwad waxaan ku wadaa inantaasoo naga isu jira inantu markaa waa tuma waxaa la yaaminayaa si way iska sheegatay shukri waxaa yaamina cabdi aadan aamina cabdi aadan nimca yaasiin markaa miyay sheegatay way sheegatay waxaad tiri masalahan ariga ku wada raaci jirnay iyadoo yar mayadaa kaa weyneed mise adaa weynaa adaa ka weynaa waayahay markaa waxaad tiri 5 jir bahayd markaad weydeen maamadan ayaa tiri waxaan raadinayaa walaasheeda oo lagu magacaabo Aamina Cabdi Aadan oo la baxda Nimco Yaasiin Caraale ayada oo 5 sano jir ah ayay inaga soo dhuntay ayay ku sii raacisay hadalkeeda haddaba maamadan ha inoo sheegto qabiilka iyo reerka ay ka dhashteen qabiilkaagu waa yaadiga nagarabo reexale waayahay markaa hooyada iyo aabaha maye dadkiina yaa idiin nooc adaa ka hadhay waayahay markaa Shukriyey Sacad Muse iyo Hawiil reer walba ama beel walba oo sheeganaysa inay Nimco Yaasiin Caraale gabadhooda tahay waxa ay dhahaan ha noola soo qabto waxaanu nahay walaalo waxaan diyaar u nahay inaan DNA isku marno laakiin Nimco Yaasiin ayaa weli wax jawaab ka bixin qabiiladan tirada badan ee sheegtay inay gabadhoodii tahay oo maanta la yiraahdo gabadha walaasheed bay u baahan tahay loo soo qabto marka DNA-daas iyo DNA in laga qaado iyo in hadii alla awood la yiraahdo lagu siboodaba ummadaada ka sugaysaa marka gabadhan maxaad u malaynaysaa maxay idin soo deydeen weyde way lunta marka ama Sacad Muse ha ku ogeydeen ma Hawiyaha ku cidba ku weydaan هذا أمة محاجة أمة واحد نولنا إلهي درتي وصعاوية وشكري عبد آدم تحسنا ونمعه عبد آدم ومن عبد آدم شن شركة دينا ويكذلون إلهي درتي ما أنت الله سوقته وربها أنت قرب ولا لما نقبها قرب يقشفك ونقطة marka waxaad rabtaa in wadanka Ingiriiska aad tagto oo DNA lagaaga miseen wadanka Hargeysa joogtid haddaba Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa tolkaaga iyo kabtaada dhaxda looga jiraa oo haddii tolkaaga aad diido ama reerkaaga iyo ehelkaaga iyo familkaaga aad diido oo aad tiraahdo aniga reerkaasi kama dhalanin wax kasta ayaa kugu dhici karo Nimco Yaasiin waxa ay inkirtay walaalaheeda ehelkeeda iyo qaraabadeeda waxa ay tiri aniga reerkaasi kama dhalan maanta waxay taagan tahay in kolba qabiil uu sheegto Nimco Yaasiin Caraale ayadaana isku keentay waayo adeega Yaasiin Caraale inta video ay soo gelido social media qofkii dhageystay ama adeega qofkii arkay uma baahna Nimco Yaasiin Caraale in la isweydiiyo reerka ama qabiilka ay ka dhalatay laakiin Nimco ayaa diido oo inkirtay oo tiri aniga reerkaasi ma ahi mana ahi maanta in kolba qabiil uu sheegto Nimco Yaasiin ayada ayaa isku keentay dadka kale ee dunida ku nool haddii daacadnimo ay jirto muu kolba qabiil sheegto may kolba reer sheegtaan taas waxay ku cadeynaysaa Nimco Yaasiin in reerkeedii iyo ehelkeedii tolkeedii qabiilkeedii ay ka dhax baxday video ayaan hadda ka hor daawaday oo Nimco Yaasiin Caraale hooyadeed ay la soo gashay oo ay Nimco ka codsanayso maamadeeda inay u duceyso videogaas qofkii daawada ayaa daawaday waa hooyada ay markaasi 2012 video ka soo duubtay ee ay ka codsanayso inay u duceyso markii dambana ay inkirtay oo ay tiri aniga hooyadeeda ma aha oo reerkaasi reer Yaasiin Caraale ima dhalin
isku soo wada duubo sadar muuqda su'aal ka dhan maalin walba in reer ama qabiil ay nimco yaasiin ay sheegtaan oo ay dhahaan kolba waa gabadheeni ayada ayaa isku keenta ayaa la dhihi karaa aad ayaa u mahadsantiin asxaabi oo idiin mahad celinayaa fiidiyowga xigo intaa ku kulmeyna sidaas iyo nabadgelyo